عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada mar kale maanta waxaan ka hadlaynaa Canada's history, taariikhdii hore ee Canada, dadkii ugu horreeyay wadankan ku noolaa, dadkii European-ka ahaa wadankan yimid, iyo wadankan dowlad sidii uu ku noqday, waxyaabaha dagaaladii Canada ay qayb ka ahayd, dhaqaalaheedii iyo wixii la mid ah ayaan ka hadli doonaa. طبعا saan horeyba u soo baranay wadankan dadkii ugu horreeyay ku noolaa waxay ahaayeen dadka la yiraahdo Aboriginal-ka. saas daraadeed markii European-ka ay yimaadeen Canada ama North America, waxay gobolada oo dhan ay ku arkeen dad native people ah ama dad Aboriginal ay ku arkeen. Aboriginals were first people to live in Canada. dadkii ugu horreeyay wadankan ku nool Aboriginal ay ahaayeen. Native people lived off the land by hunting, gathering and raising crops. dadka wadankan ku noolaa Aboriginal-ka ahaa waxay ku noolaayeen dhulka ayay ku noolaayeen, wixii ay dhulkaas ka helaan, haddii ahaan lahayd waxay ugaarsadeen iyo waxyaabo ay soo ururiyeen, iyo haddii ahaan lahayd inay wax beertaan. saas ay tahay dadka Aboriginal-ka ah ayaga dhexdooda xitaa dagaalo ayaa dhex maray. dagaaladaasna dabcan waxay u galayeen ay ku tartamayeen dabcan dhulka iyo manaafacaadka iyo haybad iyo magac ayagana maaragtay ku dagaalamayeen. markii ay yimaadeen dadka European-ka ah, طبعا dadka European-ka wadankan yimid waxay isugu jireen qaar waxay ahaayeen traders, dadna waxay ahaayeen missionaries, soldiers and colonists ay ahaayeen. intaas isugu jireen. marka qaarna waxay ahaayeen dad ganacsataa, qaar waxay ahaayeen dad diin fidinaya, kuwana askar ay ahaayeen, kuwana waxay ahaayeen dad oo maaragtay inay wax gumaystaan u socday. marka intaas oo European ah oo wadankan yimid Canada waxay bedeshay the native way of life forever. dadkii native-ka ah ee wadankan ku noolaa qaabkay u noolaayeen ayay bedeshay. dad badan oo maxaan ku rahdaa Aboriginal-ka ahna waxay u dhinteen cuduradaas oo la yimid dadka European-ka ah, sababtoo ah dadka Aboriginal-ka ah ma aysan lahayn jirkooda difaac ama systemka jirkooda difaac ma aysan lahayn. markaan ka sii hadalno dadkii ugu horreeyay ee maaragtay yimaado Canada, waxaa ka mid ahaa dadka طبعا European-ka ah Vikings dadka la yiraahdo oo ka yimid Iceland, who colonized Greenland 1000 years ago, also reached Labrador and the island of Newfoundland. dadkan ka yimid Iceland oo Vikings-ka la yiraahdo waxay gumaysteen 1000 sano ka hor ayay waxay gumaysteen Greenland, waxayna tageen Labrador iyo Newfoundland ayay tageen. The remains of the settlement, yani waxyaabihii ayaga ay meesha uga tageen maadaama ay wadankii ay deganayeen, Irons Ox Meadow la yiraahdo, are World Heritage Site. waa meel maxaan ku yiraahdaa oo goob dhaxal adduuna hadda maaragtay oo daawasho loo tago waay. weli waxaan ku jirnaa dadkii European-ka ah ee wadankan yimid. European exploration began in earnest in 1497 with the expedition of John Cabot, who was the first to draw a map of Canada's east coast. sahmintii ugu horreysay oo European ah waxay bilaabatay bilowgii 1497, wuxuuna ahaa qofkii sahmiye ahaa ninkan la yiraahdo John Cabot. wuxuuna ahaa qofkii ugu horreeyay ee maaragtay sawira khariidada muxuu ahaa bariga xeebta Canada. inta u dhaxaysay 1534 ilaa 1542 Jack Cartier ninka la yiraahdo wuxuu sameeyay 3 voyages across the Atlantic, claiming the land for King Francis of France. wuxuu sameeyay 3 safar ayuu sameeyay asigoo isaga gooshaya muxuu ahaa Atlantic-ga
provincega Atlantic loo yaqaano dhulkaas uu marayana wuxuu ahaa dhul uu maaragtay u qabanayay Faransiiska boqorkooda oo la yiraahdo King Francis ka koobaad. marka sida meesha ka muuqato laba group ayaa meesha ka jirto. groupkii koobaad hadaa aan soo sheegnay oo aan nidhi muxuu ahaa John Cabot markuu wadankii yimid Newfoundland Labrador uu tagay. طبعا John Cabot wuxuu ka socday dhinaca Ingiriiska, Cartier asna wuxuu ka socday dhinaca Faransiiska. marka laba awood ayay ahaayeen oo maaragtay wadankaas isugu timid. Cartier heard two captured guides speak the Iroquois word Anata, meaning village. ninkan Jackie Cartier la yiraahdo wuxuu maqlay laba nin oo la soo qabtay oo ahaa First Nations طبعا oo ku hadlay luqadda Iroquois-ka ayagoo isticmaalay ereyga Anata. ereygaas oo macnihiisu loola jeedo village. marka magaca meeshu ka soo bilowdayba waa halkaas. طبعا magacaas muxuu ahaa 1550 1550skii wuxuu ka soo muuqday mapska ama khariidada caalamka ayuu ka soo muuqday. In 1604 the first European settlement north of Florida was established by French explorers Pierre de Monts and Samuel de Champlain. 1604 European settlementii ugu horeeyay oo North America gaar ahaan Florida ka bilowdo waxaa aasaasay laba nin oo Faransiis ah oo la yiraahdo Pierre de Monts iyo Samuel de Champlain. labadaa nin ayaa ahaayeen. Samuel de Champlain wuxuu ahaa ninkii 1608 ninkii dhisay qalcadda hadda loo yaqaano Quebec City ninkii dhisay ayuu ahaa. marka طبعا waxaan meesha uga jeednaa dad aboriginal meesha ku noolaa, dad European ah ayaa yimid oo Ingiriisi Faransiis ugu jiro. kuwa Faransiiska waxay rabaan inay maaragtay طبعا ayaga ay xukumaan North America, kuwa kale Ingiriiska ayagana sidoo kale North America inay xukumaan ay rabaan. laakiin meesha waxaa ku nool dad oo maaragtay loogu yimid wadankii. marka dadkaas wadanka isugu yimid muxuu ahaa oo Europeanka iyo dadkan kale oo aboriginalka ah 200 oo sano ugu horeysay waxay ahaayeen dad maaragtay wada noolaa oo si fiican maaragtay wada noolaa oona iscaawin jiray ay ahaayeen. laakiin First Nations battled with the French settlements for a century. The French and the Iroquois made peace in 1701. markii dambo dad First Nations iyo Faransiiska ayaa isdagaalay. dagaalkaas wuxuu socday muddo 100 sano ah, century ayuu socday. markii dambana Faransiiskii iyo Iroquois-kii way heshiiyeen 1701 markii ay ahayd. waxaan ka hadlaynaa struggle for a continent, halgankii maaragtay loo soo galay qaaradan oo maaragtay ka dhaxeeyay طبعا Ingiriiska iyo Faransiiska. In 1670 King Charles II of English granted the Hudson's Bay Company exclusive trading rights over the water shed draining into Hudson's Bay. طبعا 1670 boqorkan King Charles la yiraahdo ee labaad oo Ingiriis ah طبعا wuxuu siiyay shirkadda la yiraahdo Hudson's Bay xuquuq ganacsi oo gaar ah ayuu siiyay. marka xuquuq ganacsi oo gaar ah macnaha markii lagu leeyahay ayaga maaragtay wixii dhoofina wixii wadankan maaragtay la soo gelinaa iyo wixii ka baxayaba ayaga ayaa awood u leh. For the next 100 years the company competed with Montreal-based traders. boqolkii sano oo maaragtay intaas xigtay waqtigaas xigtay waxaa tartamay Hudson's Bay iyo maaragtay dad ganacsato ah oo Montreal degan. sidoo kale the skilled and courageous men who traveled by canoe were called voyagers and courtiers de bois and formed a strong alliance with France with First Nations. dadkan la yiraahdo voyagers oo ahaa dad maaragtay ku safra doomankan alwaaxa laga sameeyay oo kanuuga la yiraahdo. dad ayagana waxay ahaayeen muxuu ahaa xiriir fiican la leh dadka First Nation ka ah,
xiriir fiican ayay la lahaayeen. marka meesha muxuu ahaa ganacsigii ayaa horta marka horeba lagu tartamaya. طبعا Hudson's Bay waxaa ka shaqeynaya Aboriginal, Faransiis iyo Ingiriis intaba way ka shaqeynayeen, laakiin maamulkeeda waxaa maamulaya muxuu ahaa Ingiriiska ayaa maamulayay. English colonies along the Atlantic seaboard dating from the early 1600s eventually became richer and more populous than New France. dadka maaragtay Ingiriiska ah ee ku nool dhinaca Atlantiga ah muxuu ahaa Atlantic provinceska qarnigii 16aad waxay noqdeen dad maaragtay oo muxuu ahaa xoolo heesto, waxayna noqdeen dad ka tira badan tira ahaan markii la yiraahdo dadka Faransiiska ah. In the 1700s, France and the Great Britain battled for the control of North America. marka maadaama awalba maaragtay dhaqaale iyo waxaas lagu tartamayay, hadana waxaa dhacday qarnigii 17aad in maxaan ku raada Faransiiskii Ingiriiskii uu dagaal dhaxmaro, mid walba wuxuu rabay in North America uu asiga xukumo. In 1759, the British defeated the French in the Battle of the Plains of Abraham at Quebec City, marking the end of France's empire in America. 1759 Ingiriiskii waxay jabiyeen Faransiiska, waxay ku jabiyeen dagaal la yiraahdo the Battle of the Plains of Abraham oo ka dhacay Quebec City. taas waxay noqotay in boqortooyadii Faransiiska aan dhahe North America ay meeshaas ku dhamaato, marka way jabeen muxuu ahaa Faransiiska. The province of Quebec. Following the war, Great Britain renamed the colony the province of Quebec. The French-speaking Catholic people, known as the habitants or the Canadians, strove to preserve their way of life in English-speaking Protestant-ruled empire. dagaalkii kadib muxuu ahaa boqortooyadii Ingiriiska waxay maaragtay u bixiyeen meesha oo mustacmarada waxay u bixiyeen province of Quebec ayay u bixiyeen, magacaas ayay u bixiyeen. waxaana ku badnaa طبعا dad ku hadla luqadda Faransiiska oo u badan Catholic loona yaqiin habitants ama Canadian loo yaqiinay. dadkaasna waxay ahaayeen dad raba in ay ilaashadaan qaab nololeedkooda oo dhaqankooda iyo luqadooda ayna ka tagin, ayagoo ku nool meel maaragtay Ingiriiska uu maamulayo. marka ma aysan dhihin oo waa la maamulaya aan saga dhaxmilanno, laakiin dad waxay ahaayeen ku adag luqadooda. Ingiriiska marka maadaama uu jabiyay Faransiiskii, marka waa in uu la yimaada xeelad kale uu dadkan ku xukumi karo. To better govern the French Roman Catholic majority, the British Parliament passed the Quebec Act of 1774. si marka dadkan oo Faransiiska ah loo xukumo, waxay soo saareen baarlamanka Ingiriiska qaanuun la yiraahdo Quebec Act 1774 ayay soo saareen. sharcigaas marka wuxuu ahaa sharci siinayo dadka Faransiiska ah xurriyado. waxaa kamid ah xurriyadaha uu siinayo religious freedom, xurriyad oo xagga diineed oo maadaama maaragtay Catholic ahayn dadka Faransiiska waxaa loo ogolaa inay maaragtay Catholicooda practice gareeyaan. sidoo kale permitted them to hold public office, waxaa loo ogolaaday inay madax noqdaan, hadday ahaan lahayd levelka muxuu ahaa dowladda hoose iyo hadday ahaan lahayd tan gobolka iyo hadday ahaan lahayd tan federaalka intaba. sidoo kale sharcigan Quebec Act restored French civil law while maintaining British criminal law. waxay maxaan ku raahdaa sidoo kale ay daayeen oo ay micnaha ogolaadeen in maaragtay uu sii jiro muxuu ahaa sharciga madaniga ah ee Faransiiska, ayagoo wali isticmaalayo muxuu ahaa sharciga criminal lawga loo yaqaan ama sharciga ciqaabta Ingiriiska. marka xurriyadahaas ayaa la siiyay dadka Faransiiska. and by the way waxaa xusid mudan xurriyadahaas ay Faransiiska ku heleen Canada ma aysan ahayn xurriyado ay ku haystaan Ingiriiska, marka xurriyado oo khaas ayaa la siiyay. United Empire Loyalists aan ka hadlayna hadda. United Empire Loyalists iyo cidda la yiraahdo. In 1774,
the British colonies to the south of Quebec declared independence and formed the United States. North America was again divided by war. 1776 13 mustacmaro oo mustacmaraadka Ingiriiska ah South Quebec waxay ku dhawaaqeen madax banaani waxayna sameysteen wax la yiraahdo the United States. North America mar labaad waxay noqotay mid qaybsan. More than 40,000 people loyal to the crown, called loyalists, fled the oppression of the American Revolution to settle in Nova Scotia and Quebec. In ka badan 40,000 oo dad ah qof ah oo ma aragtay daacad u ah boqortooyada Ingiriiska oo loo yaqaan loyalistska ayaa waxay ka soo carareen dulmiga markaas ka socday Mareykanka ama kacdoonka Mareykanka loo yaqaano si u degaan Nova Scotia iyo Quebec. dadkaas waxaa ka mid ahaa nin la yiraahdo Joseph Brant hogaaminayay dadka loyalistska ah gaar ahaan dadka Mohawk Indianska ah wuxuu u soo hogaamiyay Canada. marka waxay ku tusaysaa dadka meesha imaanay inay ahayn dad oo maaragtay isku dhex jiro. The loyalists came from different places and religious backgrounds. dadka loyalistska ah waxay ahayn dad oo maaragtay diimo kala duwan leh iyo ka yimid wadamo kala duwan oo macnaha dad waxa ku jiray oo German ah, dad waxa ku jiray European ah, dad waxa ku jiray oo Indian ama Aboriginal ah, dad madow ku jiray. About 3,000 black loyalists, freedmen and slaves came north seeking better life. 3,000 oo qof oo madow ah oo ayagana ka mid ah loyalistskaas oo ah rag iyo dumar la xoreeyay waxay ayagana yimaadeen northka oo loola jeedo Canada ay ugu raadinayo nolol wanaagsan. In turn, in 1792, some black Nova Scotians who were given poor land moved on to establish Freetown, Sierra Leone, a new British colony for freed slaves. Nasiib daro 1792 dad madow ah oo reer Nova Scotia oo Nova Scotia la dejiyay waxaa la siiyay dhul aad u liito. taas marka waxay ku qasabtay in ay maaragtay isaga guuraan Nova Scotia ee aadaan Sierra Leone oo ayadana sidoo kale ahayd meel maaragtay Ingiriiska uu maamulo oo dad maxaan ku iraahdaa oo la xoreeyay ay joogaan markaas. haddana aan u galno the beginning of democracy. dimuqraadiyadii sida ay ku bilowday. Democratic institutions developed gradually and peacefully. hay-adaha dimuqraadiyadda waxay u bilowdeen horumarkooda si tartiiba iyo si nabadgelyo leh. The first representative assembly was elected in Halifax, Nova Scotia in 1758. aqalkii wakiilada ee ugu horeeyay la doorto waxaa lagu doortay Halifax, Nova Scotia 1758. Prince Edward Island ayaa ku soo xigtay iyadana 1773. New Brunswick ayaa ku xigtay iyadana 1785. soo dimuqraadiyadda marka dhinacaas maaragtay East Coast ayay ka soo bilaabatay ama province of ama Atlantic province wax loo yaqaano. The Constitutional Act 1791 divided the province of Quebec into Upper Canada and Lower Canada. xeerkan ama sharcigan 1791 soo baxay wuxuu haddana qaybiyay gobolka la yiraahdo province of Quebec ayuu wuxuu u qaybiyay laba qaybood, qayb la yiraahdo Upper Canada iyo qayb kale oo la yiraahdo Lower Canada. Upper Canada waa meeshan hadda aan u naqaano Ontario waxaa ku badnaa dad maaragtay loyalists ah oo diin ahaan Protestant ah oo ku hadla luqadda Ingiriiska. Lower Canada waa meesha hadda aan u naqaano Quebec waxaa jooga dad badan oo Catholic ah oo ku hadla luqadda Faransiiska. sharcigan sidoo kale wuxuu maaragtay siiyay dadka Canadianska ah oo Faransiiska yani French Canadianska ah markii ugu horeysay legislative assemblies elected by the people. waxaa la siiyay micnaha aqal wakiilo oo ay dadka soo dooranayaan. hadda waxaan ka hadlaynaa abolition of slavery, in laga takhaluso muxuu ahaa adoonsiga. Slavery has existed all over the world.
The first movement to abolish the transatlantic slave trade emerged in the British Parliament in the late 1700s. nasiib daro adoonsiga dadka in la adoonsado waxay ahaayeen wax adduunka dhan ka jiro dhaqaaqii ugu horeeyay oo isku dayay in maaragtay ay ka takhalusaan ama ay baabi'iyaan the transatlantic slave trade يعني ganacsiga dadka laga ganacsanayo oo dhinacaas badda Atlantic iyo la isu marsiinayay ayaa wuxuu ka bilowday baarlamaanka Ingiriiska qarnigii 17aad. In 1793, Upper Canada, led by Lieutenant Governor John Graves Simcoe, a loyalist military officer, became the first province in the empire to move toward abolition. kun 793 Upper Canada oo meeshan hadda Ontario loo yaqaano oo uu hogaaminaa Lieutenant Governor John Graves Simcoe oo ahaa nin military officer ah oo askari ahaa wuxuu noqday gobolkii ugu horeeyay ee boqortooyada Ingiriiska kamid ah oo u dhaqaaqo in ay baabi'iyaan adoonsiga. In 1807, the British Parliament prohibited the buying and selling of slaves, and in 1833 abolished slavery throughout the empire. kun 1807 ee baarlamaanka Ingiriiska waxay mamnuuceen in dad la kala iibsado. kun 1833 waxay ku guuleysteen in ay baabi'iyaan is-adoonsiga boqortooyadooda dhan. intii hore waxay ahayd isku day ahayd laakiin waxa lagu guuleystay 1833 ayuu Ingiriisku ku guuleystay in uu ka takhaluso is-adoonsiga dadka la adoonsanayo. Thousands of slaves escaped from the United States, followed the North Star, and settled in Canada via the Underground Railroad, a Christian anti-slavery network. kumanaan qof oo adoonsiga ka soo cararayay ayaa waxay ka soo carreen Mareykanka waxayna soo raaceen the North Star waxayna degeen Canada ayagoo soo marayo dhulka hoostiis muxuu ahaa tareen marayo waxaana caawiyay muxuu ahaa shabakad oo ka soo horjeeda adoonsiga oo Kiristaan ahayd. hadda waxaan ka hadlaynaa marka a growing economy horumarka uu sameeyay dhaqaalaha. The first companies in Canada were formed during the French and British regimes and competed for fair trade. shirkadihii ugu horeeyay waxaa la sameeyay intii maaragtay Ingiriiska iyo Faransiiska ay maaragtay maamulayeen ana ku tartamayeen ganacsiga maqaarka fair trade-ka. The first financial institutions opened in the late 18th and early 19th centuries. hay-adaha muxuu ahaa dhaqaalaha ugu horeeyay la furo oo laga furo Canada waxaa la furay muxuu ahaa dhamaadkii qarnigii 18aad ama bilowgii qarnigii 19aad ayaa la furay. The Montreal Stock Exchange opened in 1832. Montreal ayadana maaragtay suuqa wax ku kala bedelashada asna waxaa la furay 1832. marka fair trade kaas caan ahaa intaana financial institutions la furin ka hor طبعا Hudson's Bay iyo shirkadihii hadda aan ka hadlaynay ayaana ku tartami jiray. For centuries, Canada's economy was based mainly on farming and on exporting natural resources such as fur, fish, and timber transported by roads, lakes, rivers, and canals. qarniyo badan Canada dhaqaalaheeda wuxuu ku tiirsanaa waxbeerashada iyo dhoofinta waxyaabaha dabiiciga ah sida maqaarka, kalluunka iyo alwaaxa. waxaana lagu dhoofin jiray طبعا wadooyinka ay la marayo lakeska iyo wabiyada iyo kanaalada ayaa loo isticmaalaa. طبعا diyaarada iyo waxyaabahan oo hadda adduunka isticmaalo markaas ma aysan jirin. The War of 1812 dagaalkii dhacay 1812. After the defeat of Napoleon Bonaparte's fleet in the Battle of Trafalgar
1805 the Royal Navy ruled the waves. kadib markii laga xoog roonaaday Napoleon Bonaparte ciidankiisii badda markii laga xoog badiyay dagaalkan la yiraahdo Battle of Trafalgar 1805 ciidamada boqortooyada Ingiriiska طبعا ayaa loola jeedaa ayaa xukumayay badda markaas. The British Empire, which included Canada, fought to resist Bonaparte's bid to dominate Europe. boqortooyada Ingiriiska oo ay kamid tahay Canada طبعا waxay u dagaalameen in ay ka hortagaan in muxuu ahaa Napoleon uu qabsado Europe. taas marka maxay keentay? This led to American resentment at British interference with their shipping. taas waxay keentay in ay Mareykanka caroodaan ay ka caroodaan faragelinta ay ku hayaan muxuu ahaa Ingiriiska maraakiibta oo ay leeyihiin muxuu ahaa Mareykanka markay badaha marayaan. maxay sameeyeen marka? Believing it would be easy to conquer Canada, the United States launched an invasion in June 1812. ayagoo aaminsan in ay fududahay inay Canada qabsadaan ayaa Mareykanka waxay soo qaadeen duulaan bishii June 1812. laakiin Americans were mistaken. Mareykanka way ku khaldameen tallaabadaas ay qaadeen. In 1813 the Americans burned Government House and the Parliament buildings in New York. 1813 Mareykanka waxay gubeen aqalka dowladda iyo baarlamaanka ku yaala York marka waxaa la dhihi jiray Toronto meesha Toronto aan iraano. Laura Secord oo ah naagtan halkan ka muuqato sawirkeeda made a dangerous 30 kilometer to warn Canadians of planned American attack in 1813. naagtan ayadana waxay qaaday tallaabo aad maaragtay halis u ah iyadoo soo lugaysay 30 kilometer ayay soo lugaysay si ay ugu digto ciidanka Canadianka ah ay ugu digto weerar ay rabaan in Mareykanka ay soo qaadaan. markaasna waxaa dhacay dagaal la dhihi jiray the Battle of Beaver's Dams. dagaalkaasna waa loogu xoog roonaaday Mareykanka in looga xoog roonaada naagtan ayaa sabab u ahayd. naagtan markii dambe waxay noqotay heroine ay noqotay naag oo geesiyad ah oo lagu maamuuso tallaabadaas ay qaaday. marka naagtan aad ayay muhiim ugu tahay taariikhda Canada. In retaliation, in 1814 Major General Robert Ross led an expedition from Nova Scotia that burned down the White House and other public buildings in Washington DC. ayadoo argudasho ay sameynayaan Canadianka 1814 ninkan askariga ah oo Major Generalka ah ayaa wuxuu hogaamiyay safar oo weerar ah طبعا oo Nova Scotia uu ka hogaamiyay kaas oo maaragtay markii dambe gubay aqalkii caddaa ee Mareykanka iyo guryo kale oo dowladda ay leedahay oo ku yaalo Washington DC caasimadda Mareykanka. By 1814 the American attempt to conquer Canada had failed. The present-day US-Canada border is partly an outcome of the war 1812 which ensured that Canada would remain independent. marka 1814 Mareykanka iskudaygii ay isku dayayeen inay Canada qabsadaan waa uu fashilmay. maanta xuduudda Mareykanka Canada ay leeyihiin qayb ahaan waxa ay ahayd natiijadii dagaalkii 1812 dhacay kaas oo xafiday in Canada ay ahaato wadan xurnimadiisa leh oo aanan ahayn wadan hoos imaada Mareykanka. hadda waxaan marka ka hadlaynaa rebellions falaago oo bilaabatay 1837 ilaa 38. In the 1830s, reformers in Upper and Lower Canada believed that progress toward full democracy was too slow. 1830 dad isbedel doon ah oo ku noolaa Upper and Lower Canada. Upper and Lower Canada waan soo baran. Upper Canada waa Ontario, Lower Canada and Quebec. waxay aaminsanaayeen in maxaan ku irahdaa horumarka ama tallaabada loo qaadayo dhinaca dimuqraadiyad buuxda in la gaaro inay ahayd mid aad iyo aad maaragtay yani slow u ah oo aanan
degdeg ahayn. Some believed Canada should adopt American Republican values or even try to join the United States. qaar waxay aaminsanaayeen in Canada ay qaadato nidaamka Republicanka ama qiyamta muxuu ahaa Mareykanka inay qaataan amaba ay Mareykankaba ku biiraan ayay qaarkooda aaminsanaayeen. When armed rebellions occurred in 1837, 1838 in the area outside Montreal and in Toronto, the rebels did not have enough public support to succeed. Markii ay fallaagada hubeysan ee bilaabatay 1837 ilaa 38 ay ka bilaabatay meel ka baxsan Montreal iyo Toronto, kuwa dadkan fallaagada ahaa markaas ma aysan haysanin taageero shacab si ay u guuleystaan. They were defeated by British troops and Canadian volunteers. Marka maadaama aysan taageero shacab haysanin waa laga guuleystay oo waxaa jabiyay ciidamada Ingiriiska iyo dad mutawiciin ah oo Canadian ah ayaa jabiyay. Marka maadaama la jabiyay maxaa ku dhacay marka dadkii muxuu ahaa rebelska ahaa ama fallaagada ahaa? A number of rebels were hanged or exiled. Some exiles later returned to Canada. Dadkaas fallaagada ahaa qaar ka mid ah waa la daldalay, qaar kalena wadanka ayaa laga fogay, waa laga eriyay. Markii dambana waa loo ogolaaday in ay wadanka ku soo laabtaan. Marka maadaama culeyskaas uu soo kordhay, طبعا waa inaan xasuusanaa weli wadanka waxaa xukumo British ayaa xukumo, Canada weli dowlad ma aysan noqonin. Marka British laga rabaa inay xal keenaan. Lord Durham, an English reformer sent to report on the rebellions, recommended that the Upper and Lower Canada be merged and given responsible government. Marka waxaa la soo diray ninkan la yiraahdo Lord Durham oo ahaa nin Ingiriis ah oo dadka ma aragtay yani reformerski loo yaqaano oo wax hagaajiyo ayuu ahaa. Ninkaas marka wuxuu qoray report ayuu qoray. Reportkii marka informationkii la siiyey ee ku saabsanaa dadkaas fallaagada ahaa markii uu fiiriyey wuxuu ku taliyey in Upper and Lower Canada in haddana la isku daro mar kale oo la siiyo yani responsible government, dowlad oo xukuumad muxuu ahaa oo mas'uula in la siiyo. This meant that the ministers of the crown must have the support of a majority of the elected representatives in order to govern. Marka haddii responsible government la siiyo, taas micnaheedu waxay tahay dadka wasiirada ah waxay u baahan yihiin in ay ka helaan taageero oo aqlabiyad ah dadka la soo doortay si ay u xukumaan muxuu ahaa ay dowladda madax ugu ahaadaan. Marka dadka baarlamaanka ku jiro ama aqalka wakiilada dadka ku jiro waa in ay ka haystaan cod aqlabiyada. haddaysan ka haysanin dabcan ma xukumi karaan wadanka. dadkii reformerska marka waxaa ka mid ahaa Sir Etienne Pascal Taché and Sir George Etienne Cartier ayaa ka mid ahaa. markii dambena waxay noqdeen fathers of confederation. Responsible government marka maadaama uu Lord Durham soo talada soo jeediyay, taladiisa la qaatay 1840kii. Upper and Lower Canada were united. waa la isku daray Upper and Lower Canada, waxay noqdeen province of Canada ayay noqdeen. Reformers such as Sir Louis Hippolyte Lafontaine and Robert Baldwin, in parallel with Joseph Howe in Nova Scotia, worked in the British governors towards responsible government. dad oo isbedel doon ahaa oo ay ka mid ahaayeen ninkan la yiraahdo Sir Louis Lafontaine oo Faransiis ahaa iyo Robert Baldwin, iyagoo la shaqeynayo Joseph Howe oo Nova Scotia joogo, because dadkan waxay kasoo jeedeen Lower iyo Upper Canada kasoo jeedeen. waxay la shaqeynayeen ninkaas oo Joseph la yiraahdo oo Nova Scotia joogo. kulligood waxay la sii wada shaqeynayeen dadka micnaha governorska ah ee matala dowladda Ingiriiska halkan ku matala, si ay kulligood uga wada shaqeeyaan sidii ay ku dhisi lahaayeen responsible government. The first British North America colony
to attain full responsible government was Nova Scotia in 1847-48. مستعمرات ay leedahay British ama hoos timaado Britishka oo North America ku taalo oo la siiyo full responsible government la siiyo Nova Scotia ayay ahayd 1847 iyo 48. This is the system that we have today. Marka systemka maanta aan haysan wuxuu yahay if the government loses a confidence vote in the assembly, it must resign. Haddii dowladda ay hanan weyso codka kalsoonida markii baarlamaanka uu codeeyo waxay ku qasban yihiin in ay xilka iska casilaan. Lafontaine oo ahaa nin oo micnaha dimuqraadiyadda iyo luqadda Faransiiska xuquuqdeeda u dagaalama ahaa wuxuu noqday ninkii ugu horeeyay oo madax ka noqday responsible governmentigaas wuxuu u dhigmaayay prime minister laakiin prime minister muusan ahayn طبعا prime ministerkii ugu horeeyay طبعا waa John A. Macdonald waan baran doonaa laakiin ninkan wuxuu ahaa first leader ama first head of responsible government waa confederation. waxaan ka hadlaynaa marka confederationka markuu bilowday Canada. From 1864 to 1867, representatives of Nova Scotia, New Brunswick, and the province of Canada, with British support, worked together to establish a new country. 1864 ilaa 1867 dad oo aqalka wakiilada Nova Scotia ka tirsan iyo New Brunswick iyo province of Canada. طبعا province of Canada again waa Ontario iyo Quebec ayagoo la shaqeynayo ama helayo taageero oo Ingiriis ah waxay ka wada shaqeeyeen in ay sameeyaan wadan cusub. The men are known as fathers of confederation. dadka markaas ka shaqeynayay in wadankan uu dowlad yeesho waxaa loo yaqaanaa fathers of confederation. waxay markaas sameeyeen laba level ayay u sameeyeen dowladda federal and provincial ayay sameeyeen. طبعا hadda maanta waxaan haysanaa saddex federal, provincial iyo municipal ama local saddexdaas haysanaa laakiin ayaga labadaas ayay kusoo bilaabeen. The British Parliament passed the British North America Act in 1867. aqalka baarlamanka muxuu ahaa Ingiriiska waxay meel mariyeen qaanuun la yiraahdo British North America Act 1867. طبعا waxaa xurnimo lagu siinaya markaas muxuu ahaa Canada. The Dominion of Canada was officially born on July 1st, 1867. dowladda Canada marka waxay dhalatay si rasmi ah July 1 1867. So responsible government ay kusoo bilaabatay 1840 kadibna 1867 waxay noqotay dowlad rasmi ah. Until 1982, July 1st was celebrated as Dominion Day to commemorate the day that Canada became a self-governing dominion. Today, it's officially known as Canada Day. Marka 1982 ilaa laga gaarayo maalinta July 1 waxaa loogu dabaaldegi jiray as Dominion Day ayaa la dhihi jiray. marka maalinkaasna waxaa loogu dabaaldegayay si maxaan ku iraahdaa loo xuso طبعا maalinkaas muhiimka ah oo ah maalinkii Canada ay muxuu ahaa noqotay dowlad. maanta magacaas marka hadda wuu isbedelay oo Dominion Day lama yiraahdo anymore. 1982 wixii ka dambeeyay waxaa la yiraahdaa Canada Day. waxaa isweydiin mudan magacaan Dominion Canada xaguu ka imaaday. Dominion from sea to sea. Sir Leonard Tilley, an elected official and father of Confederation from New Brunswick, suggested the term Dominion of Canada in 1864. ninkan la yiraahdo Sir Leonard wuxuu soo jeediyay oo kamid ahaa طبعا fathers of confederation wuxuu soo jeediyay magaca la yiraahdo Dominion of Canada 1864 markii inta Canada intaysan Canada dowlad noqon ka hor 3 sano ka hor taqriiban uu magacaas soo jeediyay. magacaas xaguu ka yimid marka xaguu ka keenay. He was inspired by Psalm 72 in the Bible, which refers to
dominion from sea to sea and from the river to the ends of the earth. This phrase embodied the vision of building a powerful, united, wealthy, and free country that spanned a continent. ninkaas magacaas wuxuu maaragtay kala soo baxay Bible-ka Psalm 72 ayuu kala soo baxay. معناها dominion waxaa loola jeedaa muxuu ahaa dominion from sea to sea, يعني دولة xukunta min bad ilaa bad, min webi ilaa dhulka dhammaadkiisa. ereygaasna wuxuu xambaarsanaa aragti dheer oo ahayd in la dhiso dowlad xoog badan, midaysan, oo haddana hodan ah, oo lacag leh, oo haddana xur ah, oo macnaha dimuqraadiyad ay ka jirto, taas oo gaarta qaarad dhan inay xukumaan ayuu ku fekeraya. marka dad waxay ahaayeen vision dheer leh ayay ahaayeen. 1867 Sir John Alexander Macdonald, father of Confederation, became Canada's first prime minister. ninkan la yiraahdo Sir John A. Macdonald oo asna fathers of Confederation ka kamid ahaa dadkii ugu horeeyay oo dowladda Canada inay dhisanto ka shaqeeyay, wuxuu noqday ra'iisul ugu horeeyay Canada. ninkan marka nin wuxuu ahaa ku dhashay Scotland January 11keeda 1815 wuxuuna yimid macnaha asay Canada kuma u dhalan, Scotland ku dhashay. markuu laakiin Canada imaanay, Canada wuxuu ka yimid Upper Canada ayuu ka imaaday asoo cunug yar ah. He was a lawyer in Kingston, Ontario. wuxuu ahaa nin oo qareen ayuu ahaa, wuxuu ka ahaa gaar ahaan deegaankan Kingston la yiraahdo oo ku yaalo gobolka Ontario. Parliament has recognized January 11 as Sir John A. Macdonald Day. baarlamanka waxay u aqoonsadeen January 11keeda inay tahay maalinta Sir John A. Macdonald Day, maalinta lagu xusayo ninkaas. His portrait is on the $10 bill. sawirkiisana wuxuu ku yaalaa $10 ee Canadianka ayuu ku yaalaa. Sir John Etienne Cartier was the key architect of Confederation from Quebec. ninkan la yiraahdo George Etienne Cartier wuxuu ahaa ninkii naqshadeeya ahaa oo qayb weyn ka soo qaatay in Quebec ay ku soo biirto Canada. Cartier led Quebec into Confederation and helped negotiate the entry of Northwest Territories, Manitoba, and British Columbia into Canada. Quebec kelima ahayn inuu ku soo diray Confederationka, sidoo kale wuxuu qayb libaax ka qaatay in maxaan ku iraahdaa Northwest Territory, Manitoba, iyo British Columbia in ay ku soo biiraan muxuu ahaa Canada. hadalladaasna wuxuu ka qaatay gacan weyn ayuu ka geystay. Challenge in the West. waxaa bilowday caqabado ayaa waxay ka bilowdeen dhinacaas iyo galbeedka. When Canada took over the vast northwest region from the Hudson's Bay Company in 1869, the 12,000 Métis of the Red River were not consulted. markii Canada ay la wareegtay muxuu ahaa gobolkan Northwest ay kala wareegtay Hudson's Bay Company markii ay la wareegtay 1867 12,000 oo qof oo dad Métis ah oo ku nool muxuu ahaa the Red River lama tashanin. marka maadaama aan lala tashanin arintaas ayagana way ka xanaaqeen. marka maadaama ay xanaaqeen maxay sameeyeen? in response ayagoo arintaas ka dhiidhinayo, Louis Riel led an armed uprising and seized Fort Garry, the territorial capital. Louis Riel ninka la yiraahdo ayaa wuxuu hogaaminayay falaago hubeysan ama kacdoon hubeysan, waxayna qabsadeen meel la dhahayo Fort Garry oo markaas ahayd caasimadda ayay qabsadeen. dowladda marka 2 sano leeba dhisan tahay, marka waxaa ku bilowday already caqabad ayaa ku bilaabatay. Ottawa sent soldiers to retake Fort Garry in 1870. dowladda Canada waxay markaas dirtay ciidan si Fort Garry mar kale ay u qabsadaan 1870.
marka roughly waxaa waaye dowladda markaas waxayba dhisan tahayba 3 sano. Riel fled to the United States and Canada established a new province oo la yiraahdo Manitoba. ninka la yiraahdo Riel wuu ka cararay muxuu ahaa areadas Manitoba, wuxuu u cararay Mareykanka. Canadana markaas waxay aasaaseen gobolkan la yiraahdo Manitoba marka 1870kii waa. Riel was elected to parliament but never took his seat. Riel inkastoo uu cararay uu Mareykan ku maqnaa, haddana dadkii reer Manitoba waa ay u codeeyeen, way doorteen, laakiin kursigiisa marna kuma uusan fariisanin. haddana waxaa dhacay second rebellion, haddana waxaa dhacay fallaago kale ama kacdoon kala dhacay 1885 meesha loo yaqaan Saskatchewan. hadda Louis Riel marka waxaa lagu xukumay, macnaha kacdoonkan labaad wuxuu keenay in Louis Riel lagu xukumo khiyaano qaran nin kale inuu yahay. marka waxaa lagu xukumay execution, in maxaan ku iraahdaa laga takhaluso ama la dilo. A decision that was strongly opposed in Quebec. go-aankaas dowladda ay gaartay oo ah ninkan in ma aragtay laga takhaluso aad iyo aad ayay uga soo horjeesteen reer Quebec. Riel is seen by many as a hero, a defender of Métis rights and the father of Manitoba. dad badan weliba gaar ahaan dadka maaragtay oo Métiska waxay u arkaan inuu yahay nin geesi ah, nin difaaco xuquuqda Métiska, waxayna u yaqaanaan father of Manitoba, aabaha Manitoba. marka waxaan arkaynaa marka expansionka, yani dowladdii dominiumka ahaa oo 1867 bilaabatay sida ay u kortay ee u balaaratay. 1867 Dominion of Canada markuu samaysmayay waxay ka koobnaayeen 4 gobol: Ontario, Quebec, Nova Scotia iyo New Brunswick. labadan markaas waxaa la isku dhahay Province of Canada la isku dhahay, Nova Scotia iyo New Brunswick kuwaana ugu horeeyay. kadib waxaa ku soo biiray muxuu ahaa goboladan kale oo dhan ayaa ku soo biireen. maxaan ku iraahdaa waxaa aad muhiim u ah inaan fiirino goboladan oo dhan markaa fiirisid, waa qaarna waa provinces, qaarna waa territories. marka provincega ugu dambeeyay ee ku soo biiray Canada wuxuu ahaa Newfoundland and Labrador 1949kii. territoryga ugu dambeeyana wuxuu ahaa Nunavut 1999kii. marka taariikhaha waad akhrisan kartaan, qof walba iyo gobolka uu degan yahay. reer Alberta waxay ku soo biirtay 1905 iyo Saskatchewan. Confederation marka maxaa laga wadaa? Confederation waxaa laga wadaa the joining of several provinces to form a new country. dhowr gobol inay isu yimaadaan si ay dowlad u dhistaan. Prime Minister MacDonald established the Northwest Mounted Police NWMP in 1873 to specify the West and assist in negotiations with Indians. Ra'iisul Wasaare John A. MacDonald wuxuu sameeyey ciidan la yiraahdo Northwestern Mounted Police 1873. ciidankaas muxuu ugu talagalay inay nabadeeyaan dhulkaas fallaagada ka dhacay. sidoo kale wuxuu rabay in maaragtay wada hadallo lala galo dadka Indianska ah. Today, the Royal Canadian Mounted Police RCMP, or the Mounties, are the national police force and one of Canada's best known symbols. RCMP ciidanka loo yaqaano ama the Mounties lagu naynaaso waa national police, booliiska wadanka oo dhan waaye, waxayna ka mid yihiin sumadaha ugu muhiimsan Canada ayay ka mid yihiin. On November 7, 1885, a powerful symbol of unity was completed. marka maadaama hadda aan kasoo hadlayna caqabado iyo waxyaabahaas, hadda waxaa dhacay wax wanaagsan ayaa dhacay 1885 November 7. A powerful symbol. The project micnaha waxaas la sameeyey tareenkii oo dhinacaas British Columbia ayaa la sameeyey. sidoo kale waxaa xusid mudan oo hadayta aanan sheegin in markii British Columbia intaysan ku soo biirin ka hor Confederationka waxay dowladda ka codsadeen, waxay yiraahdeen annaga darabtaan inaan ku soo biirno muxuu ahaa Confederationka, waxaan u baahannahay in lanoo dhiso tareen
waxay u arkaan dabcan maadaama British Columbia ku taalo xeebta Pacifica waxay rabeen inay ganacsi ahaan iyo uga faa'iideystaan marka balantaas ayaa laga qaaday waana loo fuliyay 1885 ayuu dhimeystirmay marka tareenkaas la dhisay yaa maalgeliyay waxaa maalgeliyay dawladda muxuu ahaa Ingiriiska sidoo kale waxaa maalgashay dad ganacsato ah oo Mareykan ah waxaana dhisay dad European ah iyo dad muxuu ahaa yani garab rarata oo Chinese ayaa dhiseen. Afterwards, the Chinese were subject to discrimination, including the head tax, a race-based entry fee. Laakiin nasiib daro markii la dhisay tareenka kadib dadkii Chinese-ka ah waxay la kulmeen cunsurinimo ayaa lagu sameeyay oo waxaa lagu soo rogay canshuur oo qof kasta oo Chinese ah laga qaadayo oo wadanka Canada soo galay marka waxay ahayd wax ayaga si gaar ah loogu bartilmaameeysanay oo dadka kale oo dhan lagu ma sameeynin laakiin dawladda Canada waxay ka bixisay raalgelin ayay ka bixisay 2006 maadaama ay ahayd siyaasad oo cunsurinimo ku dhisan. Canada's economy grew and became more industrialized during the economic boom of the 1890s and the early 1900s. marka maadaama muxuu ahaa la dhisay railwaygaas la dhisay Canada dhaqaalaheedii wuu kobcay Canadana waxay mid noqotay dawladaha oo ma aragtay oo macna wax soo saarka leh oo industrialized loo yaqaano ganacsigii iyo muxuu ahaa dhaqaalihiina kor ayuu u kacay 1890 ilaa bilowga 1900 marka economic boomka waqtigaas uu dhacay 1890s to 1900s marka maadaama meesha dhaqaalo uu ka jiro 1 million British and 1 million Americans immigrated to Canada at this time 1 milyan oo Ingiriis ay 1 milyan oo Mareykan ah ayaa Canada markaas u soo maaragtay guuray oo u soo haajiray. Sir Wilfrid Laurier became the first French-Canadian Prime Minister since Confederation and encouraged immigration to the West. Hadda waxaan soo sheegnay marka Sir Louis Hippolyte Lafontaine inuu ahaa the head or the leader or of the responsible government sababtoo ah asigana Faransiis uu ahaa hadduu ahaa Prime Minister lama dhihi lahayn Sir Wilfrid Laurier first French lama dhihi lahayn sababtoo ah kaasba Faransiis uu ahaa laakiin kaas dabcan wuu u dhigmay maxaan ku yiraahdaa Prime Minister laakiin Prime Minister ma uusan ahayn sababtoo ah Canada markaas weli dawlad maba aysan noqonin marka Sir Wilfrid Laurier ayuu ahaa first French Canadian first French sababtoo ah first Prime Minister waa soo sheegno John A. Macdonald ayuu ahaa ninka marka Sir Wilfrid Laurier wuxuu dadku ku dhiirigelinaa inay u maaragtay u haajiraan dhinacaas iyo westiga ayuu uu ku dhiirigelinaa sawirkiisana dabcan wuxuu ku yaalaa $5 sida halkaan idinkaga muuqato dagaalkii koowaad ee adduunka. When Germany attacked Belgium and France in 1814 and Britain declared war, Ottawa formed the Canadian Expeditionary Force, later Canadian Corps. Markii Jarmalka ay weerar ku qaadeen Belgium iyo Faransiiska 1914 dawladda Ingiriiska waxay ku dhawaaqday dagaal oo ka dhan ah dabcan Jarmalka. Ottawa formed the Canadian Expeditionary Force. Canada markaas waxay sameeyeen muxuu ahaa ciidamo oo sahan ah oo ciidamada yani cirka ah ay sameeyeen. More than 600,000 Canadians served in the war, most of them volunteers out of total population of 18 million. In ka badan 600,000 oo kun oo Canadian ah oo volunteer ah badankooda ayaa dagaalka ka qayb galay dagaalkii koowaad ee adduunka markaasna dadka Canadianka 18 million ayaa lagu qiyaasay inay ahaayeen. The Canadian Corps captured Vimy Ridge in April 1917, securing the Canadians' reputation of valor. Ciidamada Canadianka waxay qabsadeen Vimy Ridge meesha la yiraahdo April markii ahayd 1917 taas oo ma aragtay keentay in
ay Canadianka yeeshaan sumcadaas oo ah sumcad geesinimo waxa loo aqoonsaday inay yihiin ciidan oo aad geesi u ah. April 9 is celebrated as Vimy Day. April 9 waxaa loogu dabaaldegaa inay tahay Vimy Day marka dagaalkii koowaad ee adduunkan weli ku jirna. Regrettably, from 1914 to 1920, Ottawa interned over 8,000 former Austro-Hungarian subjects, mainly Ukrainian men, as enemy aliens in 24 labor camps across Canada. Nasiib daro 1914 ilaa 1920 intii u dhaxaysay Canada waxay qaaday talaabo oo aad maaragtay u xun 8,000 oo ah dad maaragtay Austria iyo Hungary iyo dhinacaas ka imaaday oo u badan muxuu ahaa Ukrainian ayay waxay u bixiyeen waxa loo yaqaano enemy aliens ay u bixiyeen cadowga shisheeyaha ah ayay u bixiyeen waxayna isugu keeneen meel camp ah oo 24 saacadood ay xamaalayaan ay shaqeynayaan meeshasna ay ku jiraan aysan ka bixi karin marka siyaasadaas ay sameeyeen Ingiriisku wuu ka soo horjeeday طبعا ma uusan taageersanin laakiin dawladda Canada anyways way talaabadaas way sameysay. In 1918, under the command of General Sir Arthur Currie, Canada's greatest soldier, the Canadian Corps advanced alongside the French and British Empire troops in the last 100 days. markii la maray 1918 ayadoo ciidanka markaas uu hogaaminayay ninkan la yiraahdo General Sir Arthur Currie oo loo yaqaano the greatest soldier loo yaqaano Canada ayaa ciidanka hogaaminayay ciidanka Canadianka ayagoo markaas ka barbar dagaalamaya Faransiiska iyo boqortooyada Ingiriiska ciidamadooda boqolkii maalmood ee ugu dambeysay. These include the victorious Battle of Amiens on August 8, 1918, which the Germans called the Black Day of the German Army. Marka maalmahaas boqolkaas maalmood waxaa ka mid ah dagaalada ay galeen dagaalo oo Canadianka ay ku guuleysteen oo uu ka mid yahay dagaalkan muxuu ahaa 1918 August 8 taas oo ay u yaqaanaan dadka Jarmalka ah maalinta madow ee ciidanka militariga ee Jarmalka yani maalinkaas dagaalkaas aad ay ugu jabeen. With Germany and Austria's surrender, the war ended in armistice on November 11, 1918. Markii ay soo dhiibeen Jarmalka iyo Austrianka markay soo dhiibeen dagaalkii halkaas ayuu ku dhamaaday November 11 1918 marka November 11 طبعا Remembrance Day waayo Canada looga dabaaldegaa. In total 60,000 Canadians were killed and 170,000 wounded. guud ahaan dagaalkii koowaad ee adduunka waxaa ku dhimatay 60,000 oo Canadian ah waxaana ku dhaawacmay 170 oo Canadian ciidan Canadian kamid ah ayaa ku dhaawacmay. marka taariikhda Canada aad iyo aad ayay u dheer tahay intaas ayaa hadda qaybtan ku joojinaya qaybta kalena waan dhameystiri doonaa video kale ayaan ku dhameystiri doonaa waad mahadsantiin.